بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم meel kastoo aad joogtaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay maalmo khayr badan oo wanaagsan oo fiican oo runtii qurux badan oo Ilaahay nimcooyinkiisa ka mid aynu ku jirnaa. Waxaynu ku jirnaa bishii barakeysneed ee Ramadaan, tobankii ugu horreeyay. Waxaad ogtiin soddonka cisho aanu sanadkaa dhan ku leenahay inay toban kastaaba ay tahay nimco runtii Ilaahay inoogu deeqay inaynu ka faa'iidaysanana ay tahay xaqiiqdii. Sidoo kale waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan inaan ku idhaahdo walaalayaal aanu iska ilaalino intii karaankeena. Ilaah baa ilaalo leh, Ilaah baa xafidaad leh, Ilaah baa amnaad leh, Ilaah baa maaragtay xasillooni leh. laakiin karaankeenna aynu ku dadaalno inaynu ka taxadirno cudurkan aafiyey adduunka oo idil ee COVID-19 oo runtii sida tarabta ah ee ummadda Soomaaliyeed ugu leedayso iyagu laftirkoodu. waxaad ogtiin maanta 480 ku dhawaad ayaa la diiwaan geliyey magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo guud ahaan magaalooyin kale oo iyagana laga sheegay. dhimashada dhowr 20 baa la sheegayaa. dadka ka badbaaday ama ka caafimaaday 4 qof okay. marka walaalayaal si intaa ka badan uusan inooga gaarin bulshadeenna, waxaan codsanayaa in guryaha la joogo, in la taxadaro, in la dhegeysto baaqyada ka soo baxaya dhaqaatiirta iyo xarumaha caafimaadka, in amiirta la qaato, in bandowga iyo sidoo kale guryaha joogada aan loo arkaynin inay tahay dhib iyo culays, inagoo og inaynaan karaynin inay guryaha joogno oo maslaxadda mararka qaar dadkeena ay ku jirto inay bannaanka u baxaan si u raadsadaan nolol maalmeedkooda. haddana haddii ay tahay qofka baxayo inaan nolol maalmeedkaaga bannaanka u raadinaysid adoo taxadaraya, foojignaanaya, xiranaya maaskii, gacmaha gloves gelinaya, dadka ka fogaanaya, isku day faraha dhaqanaya 30 sekonda, isku day walaal inaad maaragtay camalaadkaas samaysid. haddii kale walaal aanay jirinin iskuuladii lagu xiray, shaqooyinkii fasaxaa tahay, gurigaaga joog, sidaasaa khayr kugu jira. bulshadaada ha u soo jiidin maxaa la yidhahdaa aafo. bulshadaada gurigaaga iyo qoyskaaga ha keenin musiibo, adigana runtii musiibaha isku ridin. sidoo kale walaal haddaad tahay shakhsi u caraysan walaalkii Soomaaliyeed ama ka tabanaya wax cafi. maalmaha khayrka badan, maalmaha wanaagsan, maalmahaas runtii Ilaahay inoogu deeqay bishaa barakeysan darteed ku cafi, saasaa khayr kugu jira. afkaaga iyo adinkaaga ha laga ammaan helo, si aad adiga laftirkaagu adinkaaga iyo afka bini'aadamka kale aad uga ammaan hesho. walaal 30 juz ee qur-aanka maalin walba ha juz akhri, waa aad bay u fudud tahay. walaal waxaa weeyaan walaalkaaga kale ee Soomaaliga la jeclo wanaagga, la jeclo xasanaadka, la jeclo waxa fiican. walaal sadaqada la bax. xaqiiqdu waxay tahay sadaqadu waxyaabo badan ayay ka fidaan. intaas waxay ka tahay waana walaalnimo. aniga waxaan leeyahay meel kastoo aad joogtaanba ummadda Soomaaliyeed midnimo. waxaan leeyahay taqwada Eebbe, waxaan leeyahay soonqaad wanaagsan. Ilaahay naga yeelo kuwa camalka wanaagsan guta, kuwa Ilaahay ugu dambi dhaafo, kuwa Ilaahay dowladnimo iyo xasillooni uu siiyo, kuwa Ilaahay mushkilaadka iyo culeysyada uu uga dulqaado, kuwa Ilaahay dembiyadooda iyo kuwa waalidkooda u dhaafo, kuwa Ilaahay u soo celiyay midnimadooda iyo qarannimadooda iyo calankooda sharafta iyo karaamada lahaa, kuwa qalbiyada iyo quluubta ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ku mideeya wanaagga iyo horumarka. Ilaahay baan ka rajaynayaa bishaasi inay noo noqoto deegaanada Soomaalida qaybo ka mid ah roobab baa ka da'aya iyo nimcadii Ilaahay iyo runtii maxaa la yidhahdaa khayraadkii oo soo baxaya. insha Allah waxaan rajaynayaa dhammaanteenba midnimo iyo taqwada Eebbe. Assalaamu calaykum.